horta waxaa lagu qasban yahay baarlamanka bisha shanaad horaanteeda inuu furmo si kastaba ha noqotee waa qasab waa la socotaan baarlamanka wuxuu ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qarankana dhammaadka bisha May waa inay hor yimaadaan baarlamanka si ay u caddeeyaan ay usoo gudbiyaan qaabkii iyo habkii doorashada ay u dhici lahayd ay u qaban lahaayeen marka marna suurtagal ma noqonayso baarlamanka inuusan furmin bisha shanaad horaanteed marka taas sidaa ula socda waayahay marka ka waran xeerarka baarlamaanka ku dhiman ee xeerka xisbiyadu ka mid yahay xaaladan oo lagu jiro baarlamaanku weli ma ka gaaraa oo xeerarka iyo waxyaabaha laydinka filanayo waqtigii ku habboon oo hore oo la hirgeli karo ma ka soo dhammaan kartaan horta waxaan rabaa hal qodob in si fiican loo fahmo sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay waa baarlamanka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waa la socotaa muddooyinkii aan kasoo gudubnay oo ugu dambeysay 2016 doorashada la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban marka waxaa la dooranaa waa 275 iyo 54 oo aqalka sare ah waxay la tahay intaas xal loo waayi maayo annaga waxaan magacoonay guddi kumeel gaara oo kasoo shaqeeya qodobada ka dhiman sharciga doorashooyinka ayagoo kaashanaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka hawshiina way wadaan inkastoo arrintan oo coronavirus mushkiladan hadda ay shaqooyinka qaar ay u saamixi weysay laakiin shaqo fiican ay qabteen ilaa hadda waxaana aaminsannahay inay soo dhammaystiri doonaan waqtigii loogu talagalayna ee doorashada ay dhici doonto marna annaga hadafka annaga ma aha waddankan dastuur uu leeyahay xilliyaa loogu talagalay dastuurkaasi muddada xilhaynta baarlamanka iyo midda madaxweynaha xilligaas waxaan rabnaa intaan la gaarin ka hor doorasho inay dhacdaan rabnaa haddii la idmo insha allah guddoomiye waxaa jira walaac laga qabo in muddo kororsi yimaado oo ama baarlamaanka iyo xukuumadda iyo wada socda ha ahaadaan ama baarlamaanka keliya ha ahaadaan ama baarlamaanka iyo madaxweynaha keliya ha ahaadaan arrintaa wax war ah iyo wax talo ah oo aad ka bilowdeen wax ma jiraan waxay la tahay waddankan dastuur uu leeyahay dastuurka kumeel gaarka markaa akhrisid qodobada ku qoran wuxuu siinayaa qodobka masalan 64aad xilhaynta baarlamanka 4 sano waay qodobka 91aad markaa fiirisidna xilhaynta madaxweynaha waa 4 sano ayadana meel ay ku qoran tahay ma jirto in baarlamanka meel ay ugu bannaan tahay inay xilka kororsadaan halkan kama muuqato baarlamankana hadda uma diyaar garoobayo inuu xil kororsado ee baarlamanka wuxuu u garoobayaa shuruucdii dhineed sida hadda aad sheegtay sharcigii axsaabta siyaasadeed oo baarlamanka hadda la yaala oo asagana baarlamanka uu si degdega u dhammaystiri doono oo dib u eegis la raba in lagu sameeyo iyo dhammaystirka sharciga doorashooyinka oo guddiga hadda ku maqan 4 qodob oo muhiimka ah intaasaa lagu maqan yahay teedi kale annaga haddii alla idmo waxaan qorsheynay ka baarlamaan ahaan waddankan doorasho inay ka dhacdo ka guddoon ahaan ama guddoomiyihii golaha shacabka marna fikir ah in extension ama la yidhaahdo in waqti lagu daro maalinna kama fikirin xaqna uma lihi inaan ka fikiro baarlamankan laftiisa hadda xaq uma laha inuu ka fikiro marka extension meesha kuma jiro guddoomiye markaa ma waxaad si cad u leedahay baarlamaanka oo aad hoggaankiisii tahay marnaba lagama yaabo muddo xileedkiisii 4 sano ku koobnaa inuu wax ku kororsado duruuf walboo jirta baarlamanka wuxuu ku shaqaynayaa horta dastuurka kumeel gaarka ah iyo xeer hoosaadka asaga uu leeyahay waddankana waxaa hagaya dastuurkaasaa hagaya baarlamanka 4 sano ayaa muddadiisii ay tahay marka baarlamanka ani waxay la tahay in marna suurtagal ahayn baarlamanka inuu ku fikiro in uu kororsado muddada xilhayntiisa waadna dareemi kartaa meel ay sharciga ka qoran tahay maaha waayahay guddoomiye haddii xaalkan koronaha uu ka sii daro oo uu sii xumaado oo heer waddankii oo dhan bandow lagu soo rogo la gaaro ama dadkii isuma soo bixi karaan la yidhaahdo oo xaaladdaa la gaaro maxaa idiin qorsho ah oo aad hadda ku tala gasheen oo beddel doorasho noqon karaya haddaysan dadkii soo bixi karin oo aysan codayi karin odayaal inta meel isugu imaadaan aysan baarlamaan dooro karin maxaa taa idinkaga qorsho ah intaanan xilligeedii la gaarinse wax ma iska tidhaahdeen hadday xaaladdaa timaad horta doorashada waxaa loogu talagalay hay-ad madax bannaan oo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa loogu talagalay doorashada inay qabtaan marka guddiga doorashada hawsha ay leeyihiin annaga hawshaanada waxay ku eg tahay shuruucdii loo baahnaa inaan diyaarino inta hadda dhimanna aan dhammaystirno doorasho inay qabtaan guddigaa laga rabaa guddoomiye hadday guddigu doorasho qaba waayaan oo awoodi kari waayaan ha ahaato sababa adinku qayb ka tihidiin oo xeerarkii oo idinku dhiman ah ama ha ahaato sababo iyo duruufo kale hadday guddigu doorasho qaban kari waayaan guddoonkii baarlamaankaa tahay maxaa idiin qorshaa
ani waxay la tahay inaanan ka hor dhacno ma rabno because guddiga inay doorasho qabsoomi karto inayna qabsoomi karin ayagaa laga sugaya marka hadda prediction inaan bixino oo saadaal ah oo aan dhahno guddiga doorasho ma qaban karaan aniga waa kuu soo koobay waxaan ku yidhi sharcigan doorashada waxaa lagu dooranaya keliya 275 iyo 54 doorasho guud oo wadanka oo dhan oo dowladaha hoose lagu soo dooranayo maaha waa mid loogu talagalay un baarlamaanka in lagu doorto marka guddigaasi doorashada aan u dayno yaanan ka hor dhicin guddiga doorashada shaqay wadaan oo aan aaminsanahay in ay ku guulaysan doonaan marka waxaan sugaynaa baarlamaanka markay hor yimaadaan